أقوم كرو وببيو نور دينها أقوم كرو وببيو نور دينها أهاي ملك أفلحو أهاي علمي يعود بقوم مدن أهاي ملك أفلحو أهاي علمي يعود بقوم مدن أقوم كرو وببيو نور دينها أقوم كرو وببيو نور دينها أهاي ملك أفلحو أهاي علمي يعود بقوم مدن أهاي ملك أفلحو أهاي علمي يعود بقوم كرو وببيو نور دينها أهاي ملك أفلحو أهاي علمي يعود بقوم مدن أهاي ملك أفلحو أهاي علمي يعود بقوم مدن. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد marka hore waxaan u mahadnaqayaa Allah Azza wa Jal halkan isku keen kulmiyay iyadoo Allah subhanahu wa ta'ala aan ka baryayo inaanay noqon maalintii ugu dambeysay aynu kulanno ee kulankeenu uu intan ka sii bato anoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayo oo ka rajaynaya kollay kelmadaydu waa kelmad iska sagootinaya dardaarana waxaa marka ugu horeysa aan isu dardaarmayno alla ka cabsiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala in Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baqanno goob kasta iyo meel kasta aynu joogno iyo waqti kasta aynu markaa aynu joogno xaaladda aynu ku sugannahay sida ay doonto ha noqoto ama mid inoo fudud ama mid inagu culus ba ha noqotee الله كعبسيقنا وحا ويه امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه وحي إلهي كو أمرين إن أدلتي ماضو وحي إلهي كاربين إن المركات كفقاتو مدام آتيين أرضي مركا وحوية دلنيراء وعلمي إيه وحبر الشدي ولي كسي مشغول صن إنك سو علمي آن لدمين وميل وكل ما ضاعن ولهين هذا نوع حويه دريقيني وحبرشاء كجرتان قاركين عاد ودنك وحكا بران دونتان قاركين عاد دبد إيو ميل كلا وصفر دونتان شوي إيو وضعي كدوان وضعي كون ولايدين أتجي دونتان وحنا هادي نكون دردار مياه إناد إلى شتان دينتي إنه أهرس مالك وقوين إياد مركا وحويا ليديهين waxa kulka la doonayaa asaasku inaanu xumaanin haduu salkii uu xumaado ama asaaska xumaado waa problem weyn marka mar hadii heerkii koowaad bilaabayno waxa la inaga doonayaa fiilka ugu fiican ee aan nafteena xiisaynayno qof wax buu xiisaynaya mid wuxuu xiisaynayaa inuu barto education mid caafimaad mid wuxuu baranayaa statistics mid wuxuu baranayaa social work qof wax buu xiisaynaya marka war waxaad xiisaynaysaa ma yahay wax adigana ku anfacaya bulshadiina anfacaya suuqiina looga baahan yahay waxyaabaha ugu badan ee la eega dunida waxa kamid ah waxaad baranaysaa ma yihiin wax suuqi looga baahan yahay dhibaatooyinkeena haysta waxa kamid ah waxaan aad xoog u saarno waxyaabahan muhiim bayno ahayn marar badan marka waxa muhiim ah inaan xoog saarno wax suuqi loo baahan waxbarashada dunida marka la eegayo ardayga laba arrimood ba xoog la saaraa kow waxa la yiraahdaa academic performance in arday kor loo qaado waxbarashadiisa imka imtixaan baad soo gasheen imtixaankii form 4ga national examski waxa ugu weyn ee leeyahay waxa waa academic performance-gaaga ardaygan mathki muxuu keenay englishki muxuu keenay chemistry muxuu keenay biology muxuu keenay waxa muxuu keenay waa academic performance arinta labaad ee la eegayo waxa loo yaqaanaa preparing students for the future baa la yiraahdaa ardayda in loo diyaariyo mustaqbalka dalkiina wax u taraan ummaddiina wax u taraan iyagu naftoodii wax taransadaan marka si loo gaadho labada ujeedo waxa muhiim ah oo ujeedooyinka ugu waaweyn ay muhiim tahay war inaad isu diyaariso bulshadii iyo suuqii iyo ummadii inaad caawiso haddii markaa aanad caawin karaynin oo waxaad baratay aanu runtii taa awood u lahayn
dee problem bay noqonaysaa marka waxaanan u baahnayn inaan problem xallino problemkii la xalinayna adiga baa problem noqonaya marka talada koowaad aynu bixinayna waxa weeyaan war balaan iska eegno dad badan waxa jira waxbarashada ku takhasusay oo dalkeena jooga kala tasho dadkaas meeshaad ku biirayso si aad arintaa u samaysana waxa loo geeyaa qofkaas maadooyinkaaga iyo dhan baa loo geeyaa dhowr sanadood baa loo geeyaa maadooyinkii waxaad keentay iyo kii ugu dambeeyay national examskii wixii oo dhan baa farta laga saaraa waxa la yiraahdaa way kan maxaad xiisaysaa waxyaabo badan buu ku weydiinaya marka dambe wuxuu kaala talinayaa area-daad baran lahayd wuxuu ka oranayaa waxa baro saasay ku fiicnaanaysaa haddii kale muddo yar kadib waxaa la arkayaa adigoo wixii ka niyad jabay markaa si aanu niyad jab kuugu imanin bulshadeenniina aan u anfacno oo aad u anfacdaan bulshadii waxaa laydinka doonayaa meesha ama maxaan idhahdaa fiilka aad baranayso inaad xoog badan geliso waqti badanna geliso taasi markaa waa talada guud ee hore aan sheegayno bismillah dhammaan ardayda macallimiinta iyo maamulka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waynu yar kala baadnayo xoogaa baynu kala maqnayn in yaroo koronahan yar kala dhex galay in yar waynu isku soo erxiisnay baan jeclahay imtixaanna waad soo gasheen iminka waxaa idiin bilaabmaya xilligii ka soo doogista intaa ka sokow waxaynu soo wada joognay muddo fara badan oo ahayd 4 sano afartaas sanaynu soo wada joognay waxaa laydinku soo kobayay akhlaaq iyo cilmi iyo talo caawa halkan xafladan quruxda badan aad soo diyaariseen ee aad ku maamusaysaan macallimiintiina iyo maamulkiina aad iyo aad baan horta idinka mahadnaqaynaa waa arrin wanaagsan oo ka mid ah in ardaygu uu dareensan yahay in macallimiintiisii iyo maamulkiisii uu maamuso waa muhiim aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa xafladda caawa arrinteenu waxay noqonaysaa sheekh cadnaan baa sheegay mid waa dardaaran midna waa talo aan idinku kabayno oo aan idin odhanayno ka horumara xabadda dardaaranka ah macallin cadnaan sida uu sheegay waxaa muhiima xadhigga ilaahay qof kasta barto inuu haysto oo uu tugsanaado diinta ilaahay uu gargaaro meel kastoo uu joogo in aanu ka tegin cibaadada iyo dariiqa toosan ee ilaahay nagu ilhaamiyey taasi waa muhiim waxaa loo baahan yahay iyadoo taa aad ku dhaqmayso in haddana diinta ilaahay aad u gargaartaa la doonayaa waxaa la doonaya inaad horu mariso oo inta maanta ay taagan tahay aad ka sii kordhiso oo wixii karaankaaga ah adduunka aad ku baahiso oo dadka maanta aan diinta islaamka haysan aad soo xoro geliso wixii karaankaaga ah waa muhiim waa tayo ilaahay inoo abuuray wey intaa haddii aan ka imaad muddadii 4 sano aynu soo wada joognay waxayna soo dhex martay oo aan idinku soo toosinaynay geer hanjabaada mid indhacsayna mid kolkol aanu isyar nasakhaynay mid aanu wax idinku tusaynay dhammaantayo intaas oo dhan waxay naga ahayd in dariiqa toosan ee aad ku faa'iidaysaan aanu idinku soo ridno tii waata maanta aynu goorsanayno midhihii koobaad oo ah in imtixaankii GC-ga aad gasheen aynu sugayno natiijadiisii waxaynu ka rajaynaynaa in ilaahay inooga dhigo natiijo wanaagsan oo aad ku wada farxdaan idinkana idinka farxisaa annaga naga farxisaa waalidiintii bulshadana ka farxisaa iyo ilaahay idinka rajaynaynaa midna waa midoo maanta waxaad ka soo baxdeen iskuulkii iyo deegaankii xayndaabkii aad wax ku soo baranayseen 4 sano waxaad u soo gudbi doontaan deegaano kale oo ka ballaadhan waxaad tegi doontaan jaamacado kuwa dibadeed iyo kuwa gudood labadaba maxaa lagaga baahan yahay waxaad sidataa furihii kuu furayey cilmiga dunida yaal aad ku geli lahayd jaamacad kastoo dunida ka mid ah aad kula tartami lahayd qayrkaa dunida afku doonaha ku hadlee wixii gareerkaaga taagan maxay muhiimaddu tahay inaad garato furaha aad sidato oo meel kasta kuu furaya inaad ku shaqayso oo aad dunida
khasnad kasta oo cilmi ku jiro inaad ku furataan loo baahan yahay أيوة mahadle subxaana watacaala inagu kulmiyey goobtan dhammaantiinood waad mahadsantihiin si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa macallimiinta waan idinku wada hambalyeynaya inaynu maanta caawan halkan ku kulanno farxad gaarana weeta aniga aadna waan ugu faraxsanahay dee kolley macallimiinta iga horreysay oo hadalka way wada qaateen marka insha allah cidda iga dambaysaana way xili doontaa ma filaya kolley hal dhacdaa igu soo dhacday marka taasaa baan ugu horreysiinaya hadalkayga macal cabdirasaaq iyo macal cawil ay ku yar dhawaajiyeen saaka todobadii saaka salaad subax markaan tukanay ka bacdi ayaa inaan saaxiibanahay ma sii raacnay markaa nolol maalmeedka qof walba oo qabsada maalintii unbaan u kala haynay caadiga deetana mid ka mid ah asxaabtoo isagana israacini baa nala soo hadlay nagu yidhi hawl baa jirta kaalaya meel ka bacdina waan tagnay seminaar yar buu ahaa aduu markii aan tagnay meeshii aan fadhiisanay waxyaabihii laga doodayey ayaa maxaan ku rahdaa diintaasaa ka mid ah seminaarka waxaase yaab iyo ama kaag ahayd inay dadka lasoo marti qaaday inay ahaayeen dadkii yimid faraweyne iyo maxaan ku rahdaayey boorama shishadeeda iyo balligubadle dadka yimid oo odayaal waaweyna deetana waxaa caqliga 4 qof oo keliya taan hayno academic dee ama jaamacad ku jirta ama dugsi sare dhamaysa ama aduna wax noocaasa 4 keliya taan hayba inta kale odayaal waaweyn bay ahaayeen waxaase yaab nagu noqotay odayaasha halkaa ka yimid faraweyne maxaa tahay sababta looga doodsiinayo arrimaha maxaa diinta ku saabsan ma loo tago sheekh tir baa jooga cid walba culimadii baa joogtaa deetana haddaan idiin sheegay cidda maxaan ku raay barnaamijka qabanaysay waxa laga yaabaa inaad imika dhammaantiin yari weyn baad inkaartaan kama filaysaan ciddaas laakiin ma sheegi horta kolley imika laakiin arrintaasaa jirtay deetana odayaasha la weydiinayay waxaa la oranayay diintu arrinkaa maxay ka qabtaa si caadiya odaygu markuu si degan uga jawaabo inay iraahdo diintu waxaasay ka qabtaa dee si waayeelnimo isagu weliba dee ku beeskarnay diintii maadaama si fiican aan u garanayn waxaa la weydiinayay su-aalo cilmaaniyad iyo maxaan ku rahdaay caqligiisa odayga fogeynayaba oo meel fogeynaya annagii 4 taayad ahaynaa markaanu siniraahno yar meesha dee bal odayaashan la baaba'sanaye la doonayay in lagu ansixiyo ilaa hadda tola seminaarka dadkan qabtay maxay sameynayaan seminaar kasta sawir baa la galaa marka la dhameeyo photo group baa la galaa ka bacdi waxa loo diraa ciddii agaasimka iyo backgroundka dambe fadhiday kadibna ciddaasaa lagu yidhaahdaa waxaa waanu ansixina saasuu ku hirgalay tan waxaa la doonayaa odayaashan in maxaan ku rahdaa saa lagu hirgalay annagana si yaro kama ah ayaa la noogu yeedhay oo xataa aad bay uga xumaadeen maclaa markii ay meeshan ugu arkeen annaga deetana odayaashii baanu sinirbalniyo idinku hadda gala wax jaanisa waa la siin waayeyba ugu dambayntii baa maxaad kusoo gebagabaynaysaan baa lanagu yidhi markii baanu annaguna buufinay oon maxaan ku rahday ku tuuranay marka waxaad arkaysaa in inta arrin diineed la soo qaado dadkii caamada ahaa lasoo dhex dhigayo halkii looga yeeli lahaa dadka kale xataa intii joogtay macalaal ignoor garaynayo marka horta qodobkaa diinta oo nagu horreysiinayaaye aynu ilaashana haddii alla yidhaahdo wax kastoo nagu tahayba meel kastoo nagu taagan tahay waxay doodayaan wuxuu ahaa mid ka mid a sunnayaasha ay lahayn ma ka tagnaa mise waan deysanaa ya deetana odaygu markuu yidhaahdo dee sunnaha haddaan salaada sunnaha ka tago ilaan salaaddii waajibkii ilaalinaysaaye soo faralkana hadha tole ka tegi maayo buu ku doodaya odaygu saa lagu lahaa oo madamiba haddaad ka tagtid maxaad iskaga dhijinaysaa sunnaha ya marka balniyo insha allah diinta ku dadaalna inaan ilaashano qodobka labaad ee idinku dardaaraya waxa uu yahay waxa la yiraahdo xirfadaha haddii la yiraahdo maalintii jimcihii khudbadii laga galay masaajidka xaafadeeda ku yaala ayaa sheekh wuxuu ka galay xirfadaha iyo waxyaabaha isku hadlayay marka isaga laftiisa tusaale isku soo bixiyay sheekh waa nin weyn ilaa ku jira marka wuxuu ka sheekeynayay dee sida ay u kala duwan yihiin dadku deetana wuxuu lahaa bal waxaad eegtaan buu lahaa dadyowgan inoo soo maxaan ku rahdaay minguure innaga ama inala soo degay ee deegaanadooda muxuu ahaayey yacni marka inagu qaxaynay iyaga inuu qaxaynay balse iminka markay dagaalku ku dhacay inaga inoo soo qaxay ee isbedelku yimid wuxuu soo qaatay suuriyiinta iyo maxaan ku rahaa yamaniinta suuriyiinta waad garanaysaanoo turkigu markii uu dagaalku saa u qarxayba markuu ciidamadiisa geeyey 4 milyan buu ka haystay oo markiiba uu la baxay 4 milyan cilmi iyo aqoon iyo wax walba ay lahayn waayo dalkani wadamada ugu dhanka caafimaadka ugu maxaan ku rahday ugu horeeyo kamid aha waxyaabihii dagaalka loogu galan waxa kamid ahaa inuu anay magaalo dhan oo saa u taagan oo dadku ku nool yihiin hoosteeda uu ka waday aduu hawlo nuclear waxa uu dhisdhisanayay uu waday hawshiisa deetana arrintaas dagaalka loogu soo qaaday
dadana dadyowgii ka faa'iideysto waxa kamid ahaa Turkiga oo 4 milyan qaatay intii kale inagana soo gashay su'aaluhu soo qaatay wuxuu ahaa Suuriyiinta oo beriga tujaar ahayd oo dee ganacsato waaweyn ahayd maanta waxay taagan yihiin wadooyinka way dawarsanayaan Yamaniinta oo mad ogtihiina wadanka imika soo halkan ma joogno imika qolkan ku jirno kaliya taan eegno design-kan uu dhisan yahay beriga hore sibid ayaa maxaan ku raadayay laga dhigi jiray maxaan ku raadayay lagama soo hooysan jirin waa bilfoonkani waxaan ilaa eesiyadii caynkan marxaladii dheereed baa la soo suri jiray marka xirfadaha ay lahaa ku dadaala marka Yamaniintu markasta qaxaanba waa kuwan iska shaqaysanaya iska hiirgalaya alxamdulillah thanawullah wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin kullay carabtu waxaan likulli maqamin lahu maqal wa likulli maqalin lahu maqam oraah kastana meel bay leedahay meel kastana oraah bay leedahay waxaan u maleynayaa xafladda hadafkeedu inuu yahay mahadnaq iyo in ardaydan ay macallimiintoodii u mahad celiyaan waqtiga iyo muddada dheer la soo dacaalaysay wax dhigidoodii iyo toosintoodii iyo korintii caqligooda labadaba waxaan leenahay mahadaad ama shukriga aad naga dalbateen waa idin garanay ilaahayna nagama dhigo kuwa aan dadka shukrigooga garan waayo nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay man lam yashkur innaasa lam yashkur illah ninkaan dadka u shukrinin waxa weeyaan ninkan dadka u shukrin ilaahay uma shukriyo oo macnaheeduna tahay waxa weeyaan shukrigaas iyo mahadda iyo waxa weeyaan wanaagga aad noo qabataan waa idiga mahad celinayna kullay lama hadlo uunoo mar haddii lagu soo kiciyey waxuunbaa lama idhaahdo waxaan jecelahay anigu kullay inaan macallimiinteennii hore waddada ay mareen aan maro laba arrimood umaan ku beerinayaa inaad ogaataan inaad tihiin dadkan maanta ama dhalinyarta wax bedeli karta tagyiir kasta oo la samayn karo hadda ardayga doodiisii waxay iga baxday inay iyagiyo dad waaweyn dooday dhex martay inaad aamintaan inaad noqotaan ama aad aamintaan inaad tihiin ummad wax bedeli karaysa marka uu imanayaa waxa loo baahan yahay in la sameeyo inaad ogaataan ummaddan wanaaggeedu inuu ku jira idinka gacantiina oo shabaabka ah ummaddan fasaadkeeduna inuu ku jira idinka gacantiina oo markastuu shabaabku uu islaaxiisu farabatiyo wanaaggiisu waxaa dhalanaysa inay ummaddu hagaagto waayo ummaddu waxay ka kooban tahay shabaabka ama waxaan odhan karnaa si kale haddaan u dhigno cidda keliyata ee culays samayn karta ee wax bedeli kartaay waa shabaabka weeye waxaana daliil inoogu maanta hadday dhibaato dhacdo meeshii dooni dhibaatadaasi ha ka timaado ilaahay naga badbaadiyo ummad kasta oo dhibaato ku dhacdo culaysku wuxuu haleelaa marka koobaad shabaabka cidda dhibaatadu ay ku dhacdo waa shabaabka saa darteed waxaynu kala soo bixi karnaa inay shabaabku yihiin haddana aaladda wax bedeli karta ama wax hagaajin karta inay yihiin saa darteed inaad aamintaan inaad tihiin ummaddan cidda badbaadin karaysa dhinac kasta ka badbaadin karaysa inaad idinka tihiin arrinta labaad een raba uun inaan taabto iyadana taasi waa taasoo haddaynaad idinku aaminin dee waxba noqon maysaan inaad idinku wax tihiin inaad aamintaan ayaa waxay ka horraysaa inaad wax noqotaan inaad wax qaban kartaan aad aamintaan bay ka horraysaa inaad ummadda wax u qabataan taasi waa dardaarankayga koobaad dardaarankayga labaad inaynu ku dadaalno quluubta inaan ilaalino lianna halka bini-aadanku ay ka tamariyaan ama halka uu yahay maxalka ilaahay ilaaliya had iyo jeer waa quluubta weeye haddii una qalbigu jirin ama quluubtu ayna saafi ahayn ama quluubta ayna ahayn heerkii loo baahnaa quluuban gaadhsiisnayn iyadna isbeddelka la rajaynayaa iman maayo ducadan la idiin sheegay inay idigu dhici mayso waxaynu u baahnay inaan quluubta ilaalino oon ka ilaalino quluubta dacfiga soo gaadhay in qalbiga la ilaaliyo nin shaaciraa wuxuu leeyahay ixris calaa xifdi alquluubi min aladaa farujuucaha bacda altanaafuri yacsuru ina alquluuba idaa tanaafara wudduha mithlu الzujaajati kasruha laa yujbaru wuxuu tilmaamayaa haddii qalbiga la ilaalin waayo wixii dooniba qalbiga xanuuno badan baa ku dhaca waxaa ka mid a xanuunada ay macallimiintaynu tilmaameen oo ah qalbiga inuu jahli ku dhaco diintii uu jaahilka yahay qalbigaagu waxaa qalbiga ku dhici kara xanuun dhaawac oo kale oo ah maradu shahwa inuu qalbiga kaa galo waxa xanuun kugu dhici kara qalbigaaga inuu aamino uu yahay qalbi daciifa oon waxbaba qaban karin taasi waxay keenaysaa marka inay quluubtii isjacaylkii ka dhaxeeyey tafaahumkii yaraado mar kasta uu tafaahumku yaraadona tanaafurka bilaabmaya inay quluubtu kala yaacdo
idan dad quluubtoodu kala tagsan tahay waxba qaban maayaan idan inaad ku dadaashaan hadalkii macalin cawil baan daba socdaa dad xiriir leh inaad ahaataan ood noqotaan dad galaaskii dhexdeeda say saaxiiba u hayeen iyagoo galaaska ka maqana saaxiiba taasi waxay keenaysaa quluubtaas is haysatee tamaasugu inuu ka dhalan karo inay awood markaa samayn karto waxna ay bedeli karto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحي ما هذه السبناتي إلهي سبحانه وتعالى وإنان أرن كوبي كرين معين كن جوجل هذا وإنان أرن كرين كو يلا يصده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن وحضرتها الله شكرتم لا أزيدنكم الحمد لله رب العالمين. وحان هالنقيا معلمين تيدي شرفت لها يميلجها يماموس كأكتنا كلها يوم الإسلام كبا وحان ليا هاي معلن أبال كينو مقدمو وإلهي جنة يدين كبدلو سبحانه وتعالى. وحان مرصد حال هالنقيا ولا لدي فور وحان ليا هاي sidii yaxye baashiri waxaad isku baahitiin ninkaad isku beylahtiin waxaad isku baantihiin nimaad isku boogtiin dadkaynu isugu xignaa waana diga xigtaan waana diga xigi doontaan ilaahay idin karaameeyo waana karaameysay ma iska jiraan arrin aad ka fiirsato haddana arrinkii aad ka fiirsatay laftiisii ma kasii fiirsataa waxaan uga jeedaa kolley nin walba way ku adkaanaysaa inuu halkan ka hadlo isagoo ay fadhiyaan injineeradii caqligiisu kolley nin halkan soo istaagay uu dareemi inuu ka hor hadlo injineeradii caqligiisa markaa kolley waan ka cudur daaranayaa inaan iska ahay kolley aad baan daciif u dareemayaa laakiin mar haddii aan yagii iska yeelyeelayo dee bal xoogaa dardaarana waan yar odhan horta maanta waxaa la ii keenay xalay mise habeen hore ahayd walaalkay cabdifataax iyo nabiil baa halkaas suuqa igu yimi oo halkaa deera malaagtiisa igu siiyeen kaadhka waxaa ku qornayd xaflad sagootineed horta waad iska garanaysaa markaba cidda la sagootinayaa inay tahay macallimiinteenii iyo ardaydiiyo iyaguna isa sagootinaya taa waxaa raacaysa wallaahi waxaynu sagootinay waktiga kii ugu qaalisanaa oo nin walbo nolosha aad istira waxbuu ka arkay waktigan uu ka sheekeeya hadduu akademik ahaa ilaahay wakti kan ka qurux badanna haynagu kulmiyo iyo madal ka sii qurux badan dad badanna waynu ka nasiib badanayo markii aan inagu ka soo kacaynay guryaheenna aynu ka imanaynay waalid iyo dad ina jecel aynu u imanaynay macallimiin iyo maamul ina jecel oo ina soo dhaweynaya waxaa jiray rag laga yaaba inay naga xiniyo badnaadaan amba inaga xeelad bandaan lahaayeen laakiin waktigu aanu siinin mar labaad baan ilaahay u mahadnaqaya alxamdu lilah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كل بعض وحبرشة أيات وجود معلم إياه أرضي ويسكو قبيل ويسكو فاميلي ما كلا رمضان مرة هورية مرة بابا ما كلا رمضان واحد ماشي أقول أنا نوع علمي أرضي مرة دي ليراية معلم وعلمي علمي وحوي مركها أنا رسول كوير عليه الصلاة والسلام اطلبوا علمي إن كستوع علماء يفرضوا اطلبوا علمي ولو في السن يعني علمي قلت أنت ماش هذا الشيء أنا جاينا هذا نقطة إن كستوع حديث كاسي أنا ده علماء أميدين دون إن مركها علمي وإن والله ممرمان العلم النور وجهل الظلام علمي وكان مركها وحكفريا وكان نور كل شيء أخلاق ده way of life كيساد إنه جاي يسادات كل رقم يسو iyo mataqaana noloshaada wax ka bedelay waa kalena wax la jahli guna waa dalaal madow guri madow hadaad gasho waxba ka gaarki maysid habeen hadaad gasho indhahaaga aad moodaysaa inay waaweyn waxba ka arki maysid cilmigu markaa labada qof ee cilmiga leh saas ay u kala duwan cilmigaagu markaa haduuna laakiin cilmigu haduuna akhlaaq islaamiyan diinta islaamku salaysan haduuna cilmigaagu lahayn
waa ubax geed ka baxay ubax gudaafad ka baxay sorry ubax gudaafad ka baxay waxa faa'iido ma halka imika hadaad bilaacad halka dhexdooda bahal ubaxo sida uu sare u joogsado oo quruxiisa aad yaabayso hadaa markaad saa eegtad hoostiisa aragto ayaad ka dhaqaaqaysaa laakiin hadduu meel fiican ka baxo oo wanaagsan intaad soo qaata aad doonaysaa inaad ursato oo aad soo dhawaysato marka cilmigu hadduuna akhlaaq lahayn una akhlaaq lahayn waxa weeyaan waa ubaxa gudaafada ka baxay marka inaad akhlaaqda wanaajiso oo mataqaana aad ku salayso ficil iyo qowlba wixii aad leedahay diinta islaamka inaad ku salaysaa waa laga maarmaan cilmigu waa kaa mataqaana inay wadamada lagu kala hormaray ee lagu kala dheereeyay ee la isku gumaysto waa cilmi iyo aqoon waxoogaa yar haddaan mata xagga anay dhalinyarta waxa weeyaan wadamada hore anay ama kuwa horaadaan ama kuwa imikabe dadka wax ka bedela ee wadanka horumarkiisa iyo mustaqbalkiisa lagu xisaabiyo marka horumar la leeyahay waxa lagu xisaabtamaa waa dhalinyarada shabaabka weeyaan wadanka marka hadduu shabaab wanaagsan oo qurux badan oo aqoon leh oo akhlaaq leh u soo kaco wadankaasi mustaqbal buu leeyahay horumar weyn iyo mustaqbal dheer buu leeyahay marka idinku waxaad tihiin mustaqbalkii berrito durba halkaasaad soo gaadheen idinkoo yaryar baan dee shalay garanaysaan oo ana wada joognay oo qaarkiin aad dee yaryaraydeen alxamdulillah maanta halkaasaad soo gaadheen waddankan baa idiin baahan soomaalida kala guud ahaan baa idiin baahan islaamkaa idiin baahan عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي بنو مهد علينا dhammaanteen macallimiin iyo maamulba inoo saamaxaynu isu nimaadno iyadoo maanta aad ku jirtaan marxalad ka duwan marxaladdii hore waxaynu ilaahay ugu mahad celinaynaa inuu dugsigii sare idiin dhammaaday ood imtixaankiina fadhiisateen falilaahi alxamd waa nicmo weeyi ilaahay idinku simay waayo in badan oo aada ogtihiin oo waxbarashada idinla bilaabatay ayaa runtii maanta aan nasiib wehelay inay halkaas soo gaadhaan ama xanuun ha ka reebo ama duruufo kale ha ka reebaan in badan baanay u suuro gelin marka ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa biidni illaahi tacaala imtixaanada aada soo gasheen inaad ku guulaysataan in sha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in natiijo inaga wada farxisa ilaahay idinkala kulmiyo natiijada aynu sugayno in sha allahu tacaala runtii aniga farxad bay ii tahay ardaydii 4 sano dugsiga sare soo dhiganayay oo dugsigoodii sare dhammaystay oo marxaladoodii ay u soo dhammaatay basic educationkii dugsigii sare u soo dhammaaday maantana jaamacad isku diyaarinaya waa farxad weyn weeyi waxaan ilaahay ugu mahad celinay weeyi laba kelmadood ma odhanayaa runtii hadal badan oo dardaarana iyo hadal badan oo waanaa macallimiin iyo ardayda hadashay way soo jeediyeen laba kelmadood baan ku soo ururinayaa noloshii marxalad waad soo dhaafteen marxaladna waad gelaysaan marxaladdii waxaad soo dhaafteen baysiga ahayd ee iskuulinkii waad soo dhaafteen marxaladdii waxaad gelaysaan ku xigtay ee higher educationkii tacliintii sare aad gelaysaan ma aha tacliintii oo keliya waxaad ka soo gudubteen marxalad markii hore inta ugu badan ama intiina badan mas-uulaydi ka ahaa oo noloshiina gacanta lagu hayay mar waalid baa idinka mas-uul ahaa marna macallin iyo maamul baa idinka mas-uul ahaa laakiin iminka waxaad u gudbaysaan marxalad aada idinku mas-uuliyaddiinnii la wareegeysaan waxaa laga yaabaa qaarkiin inay iminka dee iska reeraystaanba qaarkiin inay iska guursadaanba oo ay u suuro gasho oo ilaahay u suuro geliyaba mas-uuliyaddii idinkeedi ku soo wareegaysaa inta badan markaa marxaladda aada u gudbaysaan ee ay mas-uuliyaddii idinku soo wareegayso in aada waxa weeyaan runtii maanta aada dareensanaataan ood miisaankeeda yeelataan oo degenaanshaheeda yeelataan oo aada caqligeeda yeelataan hadduu allah awoodda la ogolaado
waayo maanta go-aanka jaamacadda kulliyadda aad qaadanaysa marka imika imtixaanka lagu soo dhajiyo go-aankeeda adigu kugu xidhan go-aankeeda adigu kugu xidhan waa mas-uuliyadda kugu soo wareegtay bay ka mid tahay waxa aad qabanaysa go-aankeeda adigu kugu xidhan marka arrintaa mas-uuliyadda aad maanta qaadaysaan iyo mas-uuliyadaha faraha badan leh inuu ilaahay idiin fududeeyo oo mustaqbalkiina idiin hadhayna ilaahay idiin sakhiraanu idiin rajaynayna ilahay idinka baryanaa biidni illaahi tacaala go-aanada xilligan oo kale ardaydu ay qaataan waa xilliga ugu xasaasisan waxaa kugu adkaanaysa iminka maxaad doorataa maxaad waxbarasho jaamacaddaada maxaad doorataa baa kugu adkaanaysa waxay naga yar maqan oo dee inaga runtii naga maqan wixii la odhanaya counselingkii in ardayga talada ku habboon la siiyo go-aan adag weey maxaad qaadataa imika waxbarashadaada maxaad barataa mustaqbalkaaga eed qaadataa waayo waa takhasus inaad waxbarashada sii wadaana waa muhim intiina ilaahay idiin saamaxo idiin suuro geliyo marka arrintaa go-aanka mustaqbal ee waxbarashada waxii aad jaamacaddaada qaadan lahayd inaad aada uga fiirsataan biidni illaahi tacaala inaad aada uga fiirsataan oo waxa weeya runtii adiguna aad ku wanaagsan tahay maado aad adiguna ku wanaagsan tahay aada baran karto niyadna aada u hayso inaad waxyaabo badan qodobo badan u eegtaan doorashadaasood ka fiirsataan insha allahu tacaala نبينا محمد صلى الله عليه وسلم dhammaan maamulka macallimiinta ardayda qiimaha leh ee madasha ku sugan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan wixii la odhan karayay macallimiinta ayaa yidhi oo si qiimo leh usoo koobay hadalka wax ku oolana halkan idinka yidhi dhanka ardayda iyaguna maxamed iyo khaliil iyo waanooyinbay iyaguna ka soo jeediyeen soomaalidu waxay tidhaahdaa roobna kalkii buu da-aa qofna kaskii buu hadlaa madashani waa madal ay isugu yimaadeen qaar ama dhalinyar iyo arday aan odhan karo waa hormuudkii maanta ma odhanayo waa berri waa maanta waxaan doonayaa inaan halkan idinka sheego dhowr talo oo kooban oo macallimiintuna ay taataabteen ardaynimadu waxa weeyaan waa marxaladda ugu adag ee uu qofku uu soo maray intuu nool yahay hayaankiisa nololeed way caqabad badan tahay ama way dhib badan tahay habkaad uga gudubtaana ama aada uga gudubtaana waxay ku xidhan tahay adkaysigaaga iyo dulqaadka waayaha ku soo waajaha inta aad ku jirto hayaanka waxbarashada haddaad maanta biyoolo ka bilowdo waa shaqo xalaala waa shaqo wanaagsan ku habboon in qofku uu tacabkiisa kula soo baxo haddaad ugu sarrayso wuxuu igu yihi booyad baad iibsan macallima haddaad ku bilowdana waa haddaad jaamacadaha iyo meelaha durugsan wax ka akhrido weeyi markaa taana taasaan ka odhanayaa qodobka saddexaad wuxuu yidhi in laga fiirsado mudan dhallinyaroy waa markaad guursanayso ciddaad nolosha la wadaagaysaa way kaa mudan tahay inaad ka fiirsato ilaahay idinkiisa kaa dardaaranka saddexdaa arrimood uun baan ku gebagabayn lahaayoo badin maayo waxaan kaga bixi lahaa dardaaranka intaanan ducada u gudbin dhallinyaroy waxaan filayaa waqti dheer oo bilow lahaa ilaa dhammaad ahaa baad hadda soo wadeen intiina badnayd waxaa laga yaabaa waxaad dhigan jirteen iskuul ay inama khaas u yihiin oo wada xiniina oo bilaxayna jaamacadaha markaad gashaan arrinku saa waa ka duwanaanaya indhahaaga talow maxaad ka yeeli doontaa allah ku barakeeyo ma waxaad odhan doontaa muddo dheer baana waxba arag oo araggaad ka fara qabsan mise indhahaaga waad laaban allah ku barakeeyo dhallinyaray waxay tahay taladiidan ku gebagabayn lahaa haddaad doonaysa aqoontaad sii baratay iyo taad ku hamiyeysaa inay kuu joogto oy halkeeda kuu ahaato
labadaada indhood ka adkow arrimaha kugu soo socdeen aad baa mahadsantihiin kolley laba saddex qodob baan odhanayaa hadalka ma badan insha allah qodobka koowaad waa mahadnaq aan ilaahay u mahadnaqayna dhammaanteen ilaaha suuro geliyey inay inagoo wada caafimaad qabnaa oo allahuma salli calaa sayidina wa mawlaana maxamed cagaheenna ku soconnaa oo maskaxdeennu si fiican u shaqaynayso aynu xafladdaa maanta isugu nimaadno caawaynu isugu nimaadno insha allah qodobka kalaadna waxa weeyaan waxaan u mahadnaqayaa ardayda soo abaabushay maanta barnaamijkan oo runtii waxa ugu qaalisanee bini aadamku helaa waxa weeyaan in la xasuusto xasuustu waa shay aada u qaaliya oo runtii la ilaabi karayn taasina waxaan uga mahad celinayaa ardayda maanta barnaamijkan nagu soo casuuntay ee na xasuusatay ee tiri macallimiinteedii ayaan casuumaynaa aad baan ardayda ugu mahadnaqay laba kelmadood baan doonaya inaan idin fahamsiyo macallimiinta inta ugu badan ka hadlay wixii la odhan lahaa oo dhan waa la dhameeyey kelmad waxaa la yidhahdaa fikrad midna waxaa la yidhahdaa fikir dadku isku qaldaan fikraddu waa caqliga ku siinaya hadduu albaab kugu xidhmo saad uga bixi lahayd fikirna waxa weeyaan inaad intaad meel fadhiisato ka fakerto xabad laban oo dhakada kaa saaran 7 sannadood ood fikirun la dul fadhido waxaynu u baahan nahay haddaynu muslimiin nahay haddaynu mutacalimiinta qaranka jamhuuriyadda somaliland nahay inaynu ka fakarno inaynu fikrad keenno aynu kaga baxno dhibaatooyinka ee aynaan ka fikirin waxayna haysta waayo haddaad fikirto uun meel ma gaadhaysid laba arrimood baan idiin sheegaya muslimiintu qarnigii ugu dambeeyey waxay ahaayeen difaac weerar may ahayn intaynu ka fakerayna waa laynagu soo duulay wayn inagu duullaa sideed u duulaysaa waa inaad ka fakertaa habka ugu fudud ee ugu macquulsan ee dadkan mashaakilka wada iyaga aad u bedeli lahayd laba tusaalaan idin siinaya jaamacadda camuud waxaa wax ka dhiga 95% macallimiin kenyaana iyo ugandhiisa miyuu somalilanderka mutacalimkii ka fikirayaa maanta inay bedelaan mutacalimiinta inooga soo shaqo tegay wadamada jaararka opportunity seekers weeyaan fursad bay raadinayaan adiga inankaagii PhD-ga sitay iyo kaagii masterka sitay iyo kaagii degree-ga sitay intuba way qaawiyiinoo bannaankay fadhiyaan fursaddaana adaa siiyey sidaad u siisayna wax kale maaha waynu buunbuuninaa hudheelada yamantaynu aad wax uga cunnaa haddaan caawa hudheel cunto cidii soo geli mayso ikhwaan hadduu caawa hudheel yaroo fuulka lagu sameeyo furto wallahi inaan cidii soo gelin waxaynu jecelnahay inaynu mar walba ajanabiga raalli gelino 60 qof aad halkan ku fadhidaan haddaad min $50 iska ururisaan caawa waxaad hotel u furi karaysaan asxaabta mid ka mid oo $3,000 weeyaan waan idin tiriyay intaan halkaa fadhiyay $3,000 ba caawa la ururin karayaa haddii xoolo dirqi lama waayo Soomaalidu tiraahdaa min $50 meel laga doono subax dambe inaan baa dukaan loo furayaa yeen u furnaa talo caawa waa la suuro gelin karaa